halkii cilmiga ka caawinayo carab badan oo awalow nabo Muhammad nabi salaam alayka salaam alayka ya habibullah salaam alayka Muhammad nabi salaam alayka halkii cilmiga ka caawinayo carab badan oo awalow nabo Muhammad nabi salaam alayka 12 bisha Rabiicul Awwal ama Mawlid waxa ay ku beegan tahay markii uu dhashay rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guud ahaan dunida islaamka waxa lagu qabtaa bishaani oo kale munaasabado iyo xaflado waaweyn oo looga sheekaynayo siiradii rasuulka isla markaasina lagu muujinayo markii uu dunida ku soo biiray xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Soomaaliya ayaa waxa ay qayb ka tahay wadamada sida weyn loogu dhigo munaasabadaha iyo shicaarka lagu xusayo dhalashada rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud ayaa habeenkii xalayha lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu xusayay dhalashada rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam culimada dhalinyarada iyo qaybaha bulshada deegaanka ayaa ka qayb galay munaasabada Sheekh Xasan Aadan Kamacle iyo sidoo kale Sheekh Cali Axmed Maxamuud oo kamid ah culimada deegaanka ayaa u jeediyay bulshada wacdi diiniya oo ku aadan sida ay muhiim u tahay in qofka islaamka uu markasta qalbiga ku hayo ama uu jeclaado xabiibkeena Muhammad taasi oo ah mid lagu gaarayo dhammaan wanaag oo dhan xafladahan hadda aan dhigayno iyo qasaa'ida iyo tasadduqa iyo runtii juhdigaana aad iyo aad u tira badan oo qiimo badan oo meesha ka muuqda waa mid ka wax ku gaarayno anagu aan rabna rasuulka maxabadiisa Ilaahay inuu nagu siiyo subhanahu wa ta'ala rasuulka maxabadiisa hadii aan helno qofkii wax yar ka haysta inuu u ziyaadiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii ay haysan Ilaahay inuu siiyo waxa weeyaan marka rasuulka kaleey salaatu wa salaam ragii wanaagsanaa ee rasuulka amaanay kunka beed ku amaano boqolka beed ku amaanay nin kasta oo kamidii wuxuu lahaa waxba kama aana gaarin wax aan ka gaaray lama arko maxaan ka sheegi karaa Ilaahay baa amaanay subhanahu wa ta'ala rasuulka kaleey salaatu wa salaam waana sidaas hadde rasuulkeena kaleey salaatu wa salaam qadarkiisa iyo sharafkiisa waxa garanaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga baana amaanay asaga baana ka kormariya makhluuq oo dhan asaga ka saramariya Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى أصغى أيا أغهرية بالمؤمنين مؤمنين من أنفسهم أيا النففيا شودة النبي أيا أغهرية صلى الله عليه وسلم مؤمنين محبين تاهو نفتودة وحيكون إيبينيان النبي صلى الله عليه وسلم نفتي سيكون باتشنيان سيد عمر مركي النبي ويمي صلى الله عليه وسلم وحور النبي الله وانكو جعلهاي إلا النفسية التي بين الجنبية نفتا يوتر تنويه انت كلو واكا جعلها الضرة إيمانك مكامل نغنبوير مركي سيد وانكو جعلهاي حتى النفسية التي بين الجنبية نفتا يدينه ها أهاتي وانكا جعلهاي بوير markaasuu idan kamula iimaanuka hadda iimaankaaga kaamil noqdo waxa la rabaa adiga naftaada iyo awlaadaada iyo wixii ku dhalay iyo wixii kula dhashay iyo tolka iyo asxaabta iyo maalkaaga inaad xagga iska dhigto horta koow nabiga jeclaato sallallahu alayhi wasallam sidoo kale munaasabad tan lamida ayaa sidoo kale lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaana ka qayb galay culimada iyo qaybaha bulshada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb deegaanada Galmudug ayaa waxa ka socda munaasabado iyo xaflado waaweyn oo lagu dabaaldegayo dhalashada rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Daahir Maxamuud Cabdi Daahir Yare Tolka TV Dhuusamareeb بألف ألوف بلا حصر اللهم صل على الشافع بعد العصاة مع البرر بعد العصاة